walaalo saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyey saaka 9 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyey ciidan ilaa 6,000 oo gaadaya oo wata ilaa 8 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikobtaro iyo taangiyo iyo beebey wax ayna wadanin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen halkaasay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikobtarta ahayd ay saarteen marka la wadayo madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar waxaad sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo uu raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegayso u dhacay walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana waxa aan ku sheegayna waa wax xaqiiqda ah wax markay dhacaanna waad ogtahay wararka wax beena u baa la wada bixiyaa ninka kula hadlayo waa wax aan kula hadlayo waa Suudaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen sida aan kuugu sheegay wax u dhaceen shalay madaxweynaha hadda kusimaha ah ee cabdi maxamuud cumar bedelay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Ethiopia ay ogeyd jagada loo dhiibay arintuna ay degan tahay xaaladdu ay degan tahay maxaa isbedelay markaa oo weerarkan keenay walaal wax isbedelay oo arrin caadi ah ma jirto magaaladay jigjiga ahayd xaaladeeda laftigeedu dadkii deganaa way wada kaxeen hal qof oo jooga intii yaradee joogtana gaajo iyo biyo la-aan bay u dhiman hayaan haddaad rabtaana idinku dad kale xiriir waad la samayn kartaan xabadna waa lagala daalay arrintuna sidaa anigu aan hadda kugu sheegahaya ayay u dhacday magaaladii jigjiga ahayd iyo dadkii shacbiga ahna waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo caalami ah in lala soo gaaro magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halkaaday xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyagaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo military bay noqotay Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay sharcigii Ethiopia la jabiyey maatadii baa la leynayaa yahanagii oo dhan baa la dhacay adeerka dadka egeeda baa tahay intii ku haday ood iyo biyo la-aan bay u dhimanayaan